kulankan oo ahaa mid looga hadlaya sidii wax looga qaban lahaa fatahaadda ragaadisa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota maamulka Hirshabeelle, ganacsato, odayaal, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Baladweyne. Guddiga horumarinta Hiiraan ayaa soo bandhigay lacag gaarayso $130,000 taas oo horey loogu aruuriyay dhismaha wadada laamiga ee dhaxmarto magaalada Baladweyne ama isku xirta Baladweyne iyo Janta Kundishe. Guddiga ayaa kulanka ka sheegay markii ay heleen hay'ad dhisto wadada laamiga ee dhaxmarta magaalada Baladweyne isla markaana lacagihii loo soo aruuriyay laamiga ay rabaan inay u bedelaan in wax looga qabto fatahaadda uu sameeyo webiga Shabeelle. Gudoomiyaha guddiga horumarinta Hiiraan Xaaji Cusmaan Dhagaxow Haruur ayaa ka warbixiyay lacagtii loogu talagalay dhismaha wadada laamiga in loo bedelo biyo xireenno ama fatahaadda ragaadisay magaalada Baladweyne iyo kaalinta looga baahan yahay bulshada reer Hiiraan inay ka qaataan wax ka qabashada fatahaadda magaalada Baladweyne. waa gobol Soomaaliyeed intaas aan u gudbayaa qaybtii hore wajiga koobaad waxaan rabnaa lacagta $130,000 waa xoolihiin ka ururiyay dadkii ururiyo annaga amaanay tahay akoon ay ku jirtaa meeshii loo looxinayo taladeeda waxaan garanay in lagu daro xoolaha biyaha looga leexinayo magaalada biyaha in la leexiyo in laamiga la dhiso waxa horeeya in biyaha la leexiyo ayuu laamigu ku nabadgeli karaa laamigeena hadda dad buu helay Soomaa isbitaalkeena dad buu helay Soomaa biyaha loo furan kadibna airportka ku xijinayna hadwaale xitaa dadkii reer Hiiraan dadka ah oo u dhashay maanta markii loo soo gurmada waxa loo waa markii roobkii daamay loogu soo dejiyo wax gurcada laga soo tagaa ogtii Soomaa annagu marka waxaan jecelnahay dadka nacaska oo darbiyada warka la fadhiya oo maalinta jidka aan bilaabayna dhahay boosasay kor ku leeyihiin waa maqashay gaba dhagayladii Soomaa annagu boos waxa jid uma dhisno taasay lagu barbaagaami jireen markii dhaco lacagtii ururada ka dhiib wuxuu ku leeyahay ma taale way cuneen ma cuni baahina nooma hayso marka war xumata shiib hadda lafteeda saacada war ay soo gaarayeen wararkii soo gaara waxa kamid ah waxa la yiri nima guddiga la sameeyo fatahaadda biyaha rabaa inay budget u sameystaan war fatahaadda gurigaaga laga leexinaya ooyada laga leexinaya caruurtaada laga leexinaya adaa laga leexinaya waxa dan ku ah $50 ku guurtaa $100 ku soo guurtaa boosarku waa ka dumay guriga reejo leeyahay 2 bilood iska daba wareegaysa ganacsiga waa burburay waxa ku wanaagsan guri kasta in la garaaco $500 u dhiibo hadaadan dhiibayn ninkii ku shaqeynaa aadan ogoleyn kii oo war ku sheegana war aamus oo san lahayn gobolka horumarin sidoo ku gaaraya annagu inaan iska wareejino ka seexano raalli ku tii annagu nabadeeda dooraan annaga isxilqaana ku soo biira doonta warba ku soo biiro aniga saas aan leeyahay maanta waxaan u istaagay waxa weeye rag badan fadhiya meesha dalka kala malihin mid gaar ku haysta ma jiro waxaan aad u codsanayaa in nin waliba qowl macruuf oo adeegsado waa sadaqa qowlka macruufka waa sadaqa. Xaaji Cusmaan Dhagaxow Haruur ayaa si gaar ah ugu baaqay dadka iyo shirkadaha mar waliba kaalmeeya dadka reer Baladweyne markii ay saameyso fatahaadda in hal mar ay bixiyaan lacag xoogan oo wax looga qabto fatahaadda soo noqotay si ayaga markasta aysan u soo gurman. Burdambe iyo bariis damba sokor dambe oo hadda ku iibinayna wixii maada ma jira akoonna loo furayaa Soomaaliduna ha ogaato ninkii wax noo soo wada akoonnada inoogu shubayaan way inoogu deeqayaan gobolka biyaha ka leexinaya shirkadaha waaweyn waxaan ugu baaqaynaa sanad kasta biyo iyo fatahaada soo baxa Soomaa markaas ay soo gurmadaan 200,000 ku deeqnay ayay yiraahdaan waxa looga wanaagsan hal mar oo 500,000 ay bixiyaan milyan oo biyaha laga leexiyay magaalada iyaguna way maqlayaan waana ugu baaqaynaa haro ku soo biireen gobolka niga wuxuu qabanaya Hiiraan waa magaalo weyn waa magaalo la jecel yahay waa magaalo taariikhiya waa magaalo Soomaaliyeed lama kala laha. qaar ka mid dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabada guddiga horumarinta Hiiraan ay ku doonayaan inay wax ka qabtaan fatahaadda ragaadisay mar waliba magaalada Baladweyne. hawshu waa hawl soo dhamaatay waana soo dhaweynaynaa dhammaanteen cid kasta oo wax garata way soo dhaweynaysaa arrintaas anaguna ku soo dhownahay waana idinka ballan qaadaynaa haddaan odayaasha dhaqanka ee beelaha Hiiraan daga aan nahay waxaan soo dhaweynaynaa dadkii soo qaban qaabiyay dadkii soo aruuriyay dadkii hawshan u istaagay waa ku ayeysanahay waana ku garab taaganahay iyo hadda farsamada fiican ee galeen marka kulay anaga wax kasta oo wanaaga gabdhaan nahay haddaan mas'uuliin nahay iyo haddaan guri joogto nahay intaba mar kasta wanaaga u taaganahay waxa dhaliilaha iyo duldulaalku ka jiraan waa xagga ragga waxaan rabaa wax badan oo laga hadlay oo muhiim ah waxay u baahan yihiin la qabto aysan hadal noqonin marka insha Allah xaajigu wax badan ayuu noo iftiimiyay
nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man laa yashkuru annaasa laa yashkuru allah dadka qofkaan u mahad celin ilaahay u mahad celiyo runtii guddigii oo fatahaadda biyaha siga iyo asaa madax ahay iyo rag kaloo garbihiisa dhammaan ciddii wax lagu tartay ee adduunka dadka muslimiinta ah waa u mahad celinaynaa yacni sida wanaagsan ay noogu soo gurmadeen waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa walaalkeen iyo raggii kale la shaqaynayay oo runtii biibaxadii sanadkii hore aniga xamar aan joogay waxoogaa waa soo magaaray laakiin tan markay bilaabanaysay ilaa intay dhammaanaysay waan joogay indhahayga yacni wax walba ku arkay runtii shaqo fiican ay qabteen sanadkii hore markii loo fiiriyo sanadkan shaqo aad iyo aad u fiican baa la qabtay nabadoon dacar xirsi nuur gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa sheegay qofkii bixin waaya lacagta loogu talagalay in biyo xireen lagu sameeyo Baladweyne guud ahaan laga raro magaalada maadaama qofkaas uu ka soo horjeedo horumarka bulshada gobolkan hiiraan wuxuu u burburay oo u jajabay waa isla ognahay dawladu ma rabto xildhibaanyadan dooran ma rabaan maba dooran ayaga laakiin waxay ku doorteen ku galeen lacagtooday ku yimideen lagama yaababa ma rabaan ma rabto dawladu ma rabto maanta meeshii wuxuu ninkii haddii ilaahay yidhaaho raaga mugul lagu dilay camal korkeeda wuxuu yidhi raaga reenka galan meeshaan rabay ka soo dhacdeen maanta meeshii taalla meel ka fiican la arki maa waxayna aan quufno wax garta ayagaan wax diiday hadday nin yihiin iyo hadday naag yihiin iyo hadday wiil aqoon-yahan yihiinba waxay wax gartaa wax diidi maa maanta waxaan leeyahay meeshay joogto yaan afka keliya laga dhihine waxaan leeyahay ficil ha lagu daro ficilkaa ha lagu daro haddii yacni meel walba waad u jeedaan haddaan aanan lays aaminin oon haddii ilaahay yidhaaha ninka wanaagga wada aan wax lala qabanne ninka wanaagga qabaa keligii wax ma qaban kariyo meeshaas ay soo jeediyeen nimanka aqoon-yahanyada oo yacni haddii ganacsatada oo haddii ilaahay yidhaaho maanta waxay ka soo mareenna aan ognahay haddaana u duuban waa ayadaynaa waan ogaada dawlad ma haydiin waxaydan raboo kale ma haydiin dalka addikaa iskale annagaa iskale cidan uga haybayaysanayna male warkaa la sheegay fadhigaha looga kaco waxaan ku dara keliya in guddi nimankaas waaba xulo yihiin kuwa kale in lagu daro xula oo loo xulo oo culuba ku jirto oo dad wax yaqaan wax garad ku jiro in lagu daraan jecelahay meeshaasne waa laga gungaarayaa Baladweyne nin joogo wixii lagu soo qoraa dawlad dhiibin yaa waaba laga saar gurgana waaba laga duminayaa xaqiiqada gurga laga duminaya waxa lagu soo qoraa dawlad dhiibin gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle Maxamed Cabdullaahi Buraale oo hadal ka jeediyay munaasabada ayaa ku celceliyay aan isku tashanno si wax aan uga qabanno fatahaada sida weyn u saameysay magaalada Baladweyne iyo deegaanada hoos yimaada dabcan markuu qofka wax asiga uu kansado oo la imaado barnaamij wax waa loogu daraa adduunka u jeedin contributionada bini'aadanka marka ayaga la imaadaan ama magaalooyinka la dhisaayo qof walba horta asiga wax la imaado runtii maalintaas waxay ahayd maalin wanaagsan dhaqaalihii ayadoon la aruurinin halkan la isaga yimid xaajiga gudoomiyaha waa fadhiya haddan runtii xiriirkii maalintii la soo xiriirayna waa joogay waa inta yareedo media laga arkay inaan wax aruursanay kaliya runtii wuxuu ahay barnaamijkaasna waxaan dhigi karaa barnaamij bayaxa oo ahay maanta annaga waxaan rabnay inaan 4 kilomitir aan sameeyno runtii 6 kilomitir oo annaga waxba nooga bixin inaan la helay hadda marka maadaama lacagtii loo wareejiyay dhanka biyo xireenka oo meesha noogu daran maanta wata ka daran waayo wado waxba ma taraysa daana biyo la keenay si kasto oo ma aragtay aan biyo xireen loo helin wada si kasto loo dhisay way baabiisa biyaha baabiinahay marka runtii insha Allah waxaan rajaynaynaa in haddana sidii oo kaleeto cid wax nagu darsato ama cid wax nala bixiso muwaynayno ama cid xataa ma aragtay dhahda sidaan oo kale waa dhisaynaa marka waxaan rabnaa in juhdi la geliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle Geelle Isaaq Warsame oo gabagabadii hadal ka jeediyay munaasabada ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo cid walba oo danaynayso wax ka qabashada fatahaada inay garab istaagaan guddiga horumarinta Hiiraan oo xilligan u istaagay wax ka qabashada fatahaada saameynta badan ku reebtay Baladweyne hay'adaha UN-ka zero corruption ay soo qoreen markii hadda ugu dambeysay warbixintii la aruuriyay arintaasna ninkaas keenay aad u maasiin taas waan ka gudbaa horta mid kale waxaan helay furo oo la yaab leh meeshaan xafladan ka dhaxla furaha wuxuu yahay
adinkii niman dhallinyaraha oo aqoon-yahanaa oo ganacsata oo haweenkii iyo odayaasha dhaqankeeda waxooda haysaatiin adinka ayaa dawladdu idinka ay tahay adinku dawladda midtiina dawladda shacabka ah dawladnimada waxay ka timaadaa shacabka wixii adinka gacanta ku haysatiin inaad dad kala weydiisaan suuragal ma 600,000 oo dollar soo dhiibay Djibouti waxaan ka codsanaa inay ayaguna akoonkaas ku soo shubaan 500 oo dawladda federaalka wadayne ayaduna akoonkaas waa inay ku soo shubaan si biyaha dadka looga leexiyo haddii kale hawshaas waxa way noqonaysaa in hawshaas haddii kale waxay noqonaysaa awalan dawladda dhaxal uga baaco ku tumayna inay xaaladdu si xumaato waa in akoonka lagu shubaa si webiga loogu leexiyo